Sheekada 7-aad. Sheekada ninkii wanaagsanaa ee reer Samaariya. Maalin ayaa waxaa Ciise u yimid nin sharciyaqaan ah oo rabay inuu tijaabiyo isaga, wuxuuna ku yidhi, Macallimow, maxaan sameeyaa oo aan jannada ku galaa? Ciise wuxuu ugu jawaabay, maxaa ku qoran sharciga Ilaahay? Ninkii wuxuu dhahay, waxaa sharciga ku qoran, jeclow Rabbiga Ilaahaaga ah oo qalbigaaga oo dhan sii, iyo naftaada, awooddaada iyo maskaxdaada. Waxaa kale oo aad jeclaataa deriskaaga sida naftaada aad u jeceshahay oo kale. Ciise ayaa ugu jawaabay, waad saxan tahay oo haddii aad sidaas samayso, waxaad geli doontaa jannada. Laakiin sharciyaqaankii si uu dadka u tuso qaabka uu u nool yahay inay tahay midda saxda ah, ayuu Ciise weydiiyey, yaa ah deriskayga? Ciise wuxuu sharciyaqaankii ugu jawaabay sheeko isagoo ku leh, waxaa jiray nin Yahuudi ah oo ku safrayay waddo u dhaxaysa Yeruusaleem iyo Yerixo. Inta uu ninkii safarkiisa sii watay, waxaa ninkii waddada u galay niman tuuga ah. Wax kasta uu watayna way ka qaateen, wayna garaaceen ilaa ay meyd ahaan uga tageen. Wax yar kadib, wadaad Yahuudi ah ayaa waddadii soo maray. Markii uu wadaadkii arkay ninkii la garaacay oo dhulka jiifa, waddadii ayuu ka leexday, ninkiina ma uusan caawin oo socodkiisii ayuu iska sii watay. Wax yar kadib, markuu wadaadkii meesha maray, sidoo kale waxaa meesha soo maray nin reer Laawi ah. Reer Laawi waxay ahaayeen qabiil ka tirsan Yahuudda oo caawiya wadaadka macbuudka. Ninkii reer Laawiga ahaa sidoo kale wuu iska dhaafay oo ma uusan caawin ninkii tuugadu dhibaateysay ee waddada jiifay. Qofka saddexaad ee waddada soo maray wuxuu ahaa nin reer Samaariya ah. Samaariyiintu waxay ahaayeen dad isku dhaf ah oo ka dhashay Yahuud iyo dad aan Yahuud ahayn. Samaariyiinta iyo Yahuuddana aad ayay isku necbaayeen. Markuu ninkii reer Samaariya arkay ninkii dhulka jiifay, wuxuu ogaaday inuu yahay Yahuudi, laakiin wuu u naxariistay oo wuxuu ninkii saaray dameerkiisii, wuxuuna geeyey hoteel, halkaasna wuu ku xanaaneeyey. Maalintii xigtay, ninkii reer Samaariya ahaa wuxuu rabay inuu safarkiisa sii wato. Kadib ninkii hoteelka haystay ayuu siiyey lacag, wuxuuna ku yidhi, ninkan xanaaneey oo ka warqab, haddii uu isticmaalo lacagtan aan kuu dhiibay in ka badan, aniga ayaa kuu gudi doono oo ku siin doono markii aan soo laabto. Kadib Ciise wuxuu weydiiyey sharciyaqaankii, midkee ayaad u malaynaysaa saddexda nin inuu ahaa deriska ninka la dhacay ee la garaacay? Sharciyaqaankii ayaa u jawaabay Ciise oo ku yidhi, midka u naxariistay ninka la garaacay. Ciise ayaa ku yidhi sharciyaqaankii, bax oo adiguna sidoo kale sameey.